Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta igu xiran kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub. Maanta waxaan ka hadlaynaa bataati macaanka ama sweet potato waxa loo yaqaano. Barda macaanka waa qudaar nafaqo badan leh, dhadhan macaan iyo faa'iidooyin caafimaad oo fara badan. Waxaa laga helaa fitamiino, macdano iyo maadooyin dabiici ah oo jirka u wanaagsan. Halkan waxaan kugu soo koobayaa faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee barda macaanka. Ugu horeyn, wuxuu hodan ku yahay nafaqooyin fara badan. Waxay hodan ku tahay vitamin A oo u muhiimsan aragga iyo caafimaadka maqaarka. Waxaa ku jiro vitamin C iyo E oo ka caawiya jirka. Waxay leedahay fiber fara badan oo hagaajiya dheefshiidka. Caafimaadka indhaha. Vitamin A badan oo ku jiro barda macaanka ayaa gacan ka geysta ilaalinta caafimaadka indhaha iyo ka hortagga aragga daciifka ah. Ka hortagga kansarka. Beta carotene iyo antioxidant-ka kale waxay yareeyaan halista unugyada kansarka sababtoo ah waxay xakameeyaan waxyeellada xagjirrada. 4. Caafimaadka caloosha iyo dheefshiidka. Fiber-ka ku badan barda macaanka wuxuu hagaajiyaa shaqada mindhicirrada wuxuuna ka hortagaa calool fadhiga ama constipation-ka. Caafimaadka wadnaha. Waxay ka kooban tahay potassium oo u hoos dhiga cadaadiska dhiigga. Fiber-ka iyo antioxidant-ka waxay ka caawiyaan yareynta halista xanuunka wadnaha. Kor u qaadista difaaca jirka. Vitamin C iyo maadooyinka kale ee ku jira waxay xoojiyaan difaaca jirka ama immune system-ka, taasoo jirka ka caawisa la dagaalanka cudurrada. Xakameynta sonkorta dhiigga. Inkastoo ay macaan tahay, haddana fiber-ka badan iyo qiimaha glycemic index-ka oo hooseeya ayaa ka dhigaya barda macaanka mid caawiya dadka qaba macaanka ama sonkorowga si aysan sokorta dhiigga si degdeg kor ugu kicin. Caafimaadka maqaarka iyo timaha. Vitamin A iyo C iyo E waxay muhiim u yihiin quruxda maqaarka, waxayna gacan ka geysteen in maqaarka iyo timaha caafimaad yeeshaan. Nafaqo u fiican haweenka uurka leh. Folate badan ee ku jiro barda macaanka wuxuu muhiim u yahay haweenka uurka leh sida looga hortago cilladaha uurjirka. Tamarta jirka. Barda macaanka waa ilo fiican oo karbohaydraytyo badan oo caafimaad leh, waxayna siisaa jirka tamar joogto ah. 10. Tamarta jirka. Barda macaanka waa ilo fiican oo karbohaydraytyo caafimaad leh, waxayna siisaa jirka tamar joogto ah. Gunaanadkii. Barda macaanka waa cunto caafimaad badan qof walba uu ka faa'iidi karo. Waxay ilaalisaa caafimaadka indhaha, wadnaha, maqaarka iyo caloosha, waxayna leedahay awood ka hortagga cudurrada badan oo khatarta ah. Habka u wanaagsan aad u isticmaali karto barda macaanka. Qaybyo kala duwan ayaan halkan ku haynaa, waan inoo sharixi doonaa insha Allah. Isla socod wanaagsan. Ugu horeyn, qaybta hore waa la dubi karaa ama waxaad samayn kartaa waxa loo yaqaano roasted sweet potato. Dhaq barda macaanka si fiican, ku jar jeex yar oo khafiif ah. Ku shub saliid saytuun iyo milix yar. Xawaashi. Ku shub saliid saytuun yar, ku dar milix iyo xawaaji yar. Ku rid foorna. Sug muddo ilaa 25 ilaa 30 daqiiqo ilaa ay ka noqoto mid jilicsan oo quruxsan. Waxaa fiican in la cuno subaxii ama casho fudud ahaan. Midda labaad, in la kariyo ama biyo lagu buriyo. Barda macaanka soo qaad, jarjar ama asigoo qoloftiisa qabo, dabka saar. Ku shub biyo karkarayo iyo milix yar. Sug 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo. Markay diyaar noqoto, si toos ah u cun ama ku dar salad. Waa habka ugu fudud oona ugu fiican caafimaad badan. 3. La shiilo ama pan fried with little oil. Waad shiilan kartaa adigoo saliid yar ku darayo. Barda macaanka soo qaado, si yar u jeex oo khafiif ah. Ku rid digsi leh saliid saytuun yar, shiil ilaa ay huruud ka noqoto. Ku dar toon, basal iyo xawaashi si dhadhanaan fiican uu u helo. Waa caafimaad badan shiilista. Bataati macaanka waxaad u isticmaali kartaa si maraq ahaan ama sweet potato soup waxa loo yaqaan, ama maraq ahaan ayaad u isticmaali kartaa. Karso barda macaanka, ku dar karooto, basal iyo toon. Ku rid maraq digaag. Markay jilicsanaato, isku qas blender-ka si aad u hesho maraq khafiif ah oo isku filan.
waa cunto nafaqo badan oo ku fiican carruurta iyo dadka waaweyn. 5 cabitaan ahaan ayaad u isticmaali kartaa ama smoothies waxa loo yaqaano. Karso baradho macaanka oo qaboojiso. Ku rid blenderka, ku dar caano sida caanaha almondka ama soya milk ama xitaa caanaha caadi waa isticmaali kartaa. Ku dar malab yar iyo heel si dhadhan fiican loo helo. Waa cabitaan caafimaad badan oo tamar siinayo jirka. Talo muhiim ah: ha ku darin sonkor badan waxaa yeelay baradho macaanka ayaaba leh sokor dabiici ah. Halkan waxaan idinku sharaxayaa dadka macaanka qaba qababka u isticmaali karaan batati macaanka. Aad bay u fiican tahay dadka qaba macaanka waa inay doortaan cunooyin ka caawiya in sokorta dhiigga si tartiib ah u kacdo. Baradho macaanka waxay leedahay glycemic index hoose marka la kariyo si fudud, aan la shiilin, saliid badan loo yeelin. Halkan waxaan kugu diyaarinaynaa liis cuntooyin caafimaad leh oo u fiican ama ku habboon dadka qaba macaanka. Baradho macaanka la kariyo oo la cuno keli. Dhaq oo kari baradho macaanka, qolofkana ha ku reebin si fiber badan loo helo. Ku cun casho fudud ahaan ama subaxii iyadoo aan lagu darin sonkor. Waxay siinaysaa tamar tartiib ah oo sii daynaya dhiigga. Waxaad u isticmaali kartaa sida salad ahaan. Kari baradho macaanka, jar qaybo yaryar, ku dar khudaar cagaaran sida basasha, yaanyada. Ku shub saliid saytuun yar iyo in yaroo liin dhanaan. Cunto nafaqo badan oo hoos u dhiga sonkorta dhiigga. Maraq baradho macaan iyo khudaar. Ku kari baradhada maraq digaag. Ku dar khudaar kale sida karooto, broccoli iyo spinach. Waa cunto caafimaad leh oo caloosha iyo sonkortaba u wanaagsan. 4 baradho macaanka oo la dubo ama la pangareeyo. Ku dub foorno iyo qolof la saarayo. Ku dub foorno iyadoo qolofka la saarayo. Markay bislaato ku dar xawaaji sida toonta, budada ama cinnamon. Waa cunto fudud oo aan ku dari dufan badan. Cabitaan ama smoothie. Kari baradhada macaanka oo qabooji. Ku rid blenderka, ku dar caano aan dufan badan lahayn sida soya milk ama almond milk. Ha ku darin wax sonkor ah. Ku dar cinnamon powder halka sonkor laga isticmaali lahaa. Waxay bixisaa tamar caafimaad leh oo sonkorta si tartiib ah u sii daynaysa. 6 baradho macaanka iyo digir. Kari digirta casaanka ah. Ku dar baradho macaanka oo la jarjaray, basal iyo toon. Ku dar maraq yar si aad u hesho cunto isku dheelitiran, borotiin iyo fiber badan leh. Aad ugu fiican dadka qaba macaanka. Waxayna ka hortagtaa sonkorta oo si degdeg ah kor u kacda. Talo muhiim ah: iska ilaali shiilada baradhada macaan saliid badan maxaa yeelay waxay sare u qaadaa sonkorta iyo dufanka. Cun xad dhexdhexaad ah, hana badsanin. Ku dar khudaar cagaaran si sonkorta dhiigga loo xakameeyo. Halkaas ayaan ku ekeysiinayaa muuqaalkeena maanta. Subscribe inoo saara muuqaalkana meel fog inoo gaarsiiya insha Allah. Intaas inka badan waan isla socon.